Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halkani waa Gari Global Network. Maanta waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan ra'yiga dadweynaha. Ra'yigan waxaa noo soo diyaariyey Mudane Maxamed Nuur. Ra'yiguna waa sidatan dhageysi wacan. waad ku mahadsantihiin Gari Global Network. ra'yi aruurinta aad sameynaysaan oo ku saabsan maxaa Itoobiya ka socdo, kilka eegi muxuu hayaa, hadday xaalada ka darto maxaa la qaban karaa, maxaa ra'yi ama talo iyo tusaale laga geysan karaa, in la isweydiiyay aad bay muhiim u tahay. anaga haddaanu nahay waxgaradka ka soo jeedo gobolka Daawa, runtii waxyaalo qaar oo maartay lista tusan waa jirta waxgaradka ka sheekaystaan. runtii maanta waxaan arkayay maartay arrin dhiile maartay diile leh oo maartay aad u fiican oo ka dhacday meeshii la yiraahdo Jigjiga. dawladda uu hogaamiyo Mustafa iyo waayo aragga odayaasha maartay ay ka wada tashanayaan mustaqbalka ummadda iyo mustaqbalka wadanka. runtii aad baan u gobaabinayaa, gacan waa siinahayaa. wixii dhaliil ah waxa weeyaan waa la dhaliilaa dawladda, wixii ay ku saxan tahay in gacan lagu siiyo aad bay u muhiim tahay. madaxweyne runtii tallaabadaad qaaday oo odayaasha su keentay oo maartay aad baan u gobaabinayaa, u bogaaginayaa, gacan baan idinku siinaynaa runtii. marka tan kale oo maartay oo laga hadlay hadda xilligan xilli mucaarad iyo muxaafid laga hadlay ma aha. hadda survival tactic in la galo way, sidii aan ku badbaadi lahayn qoomiyad ahaan Soomaali ahaan, sidii lagu badbaadi lahaa falkeeda in la galo way ma ahane in laga sheekeeyo anaga guuleysanay na soo raaca ma aha. mismahane mucaarad baatiina codkiina lama qaadi karo ma aha. runtii qof maartay aan aad u sharfo oo halka ka hadlaayay oo la yiraahdo maartay Mr. Shaale, runtii hadalkiisu ma bogin, xoogoo yar waxa ku jirto wili inuu maartay doorashooyinkii loo kala adkaaday iyo la soo xoogay iyo maamul xumadii hore la soo maray inuu wili ku dhagan yahay baad moodaa. waxa aan wax ku qiimeynayna ha noqdaan taa mararka waxa la isku qasayaa mucaarad iyo muxaafid ma la isku yimaado. miiska talada lagu yirmay lan talada lagu kala guuleystay lama xusiis waan naqaana, dawladda sitaankeeda waa la yaqaana, hebel ku xiran inta sirdoon buu yaqaana, ciidan buu ku xiran yahay, xildhibaan ha laga dhigo, hebel ay itixaad ha laga saara, hebel listiga ha lagu dara. waxaas oo dhammaan soo marnay waan ka baxnay, qandaraasyadan la qaadanay waan ka soo gudubnay. miiska talada lagu yirmay lan talada lagu kala guuleystay hase ahaatee waxaasoo dhan hadda xilligan xilli laga hadlayo ma aha. ummadan Soomaalida ah hadday Itoobiya maanta maartay burburto maxaan sameyn karnaa, maxaan qaban karnaa, halkeebaan aanaa, sidee baan isku difaacnaa dhulkeegii ileen waxaan ku noolnahay wadan shucuubteegii 100 jeer laga badan yahay baan ku noolnahay. hadduu wadankan kala kac noqdo weefga qaxootiga iyo dhibaatada iyo illegal gangsga criminal gangsga waxaanoo dhan yani sideen uga hortagnaa, maxaan sameyn karnaa, sidee baan isku difaacin karnaa inaan ka hadalno way. mismaahan nimankii dhiihe cabaaga ahaa oo TPLF ka ahaa oo dhibka badanaa 22 sano wadanka maartay dhibaato culus u geystay oo taariikhda ku qoran hadday wadanka qabsadaan maxaan sameyn karnaa. in horta la isweydiiyo su'aalo adag in la iska weydiiyo way, su'aalo adag in la isweydiiyo oo jawaabo adag iyo maartay soo baxdo way. madaxweyne Mustafa xilligan xilligii adeeg loo baahdana way, adeeg in la soo baxdid weeye oo ummadan ku hogaamiso maartay wixii saxan ku hogaamiso way. mid kale aan ku siinayo talo ahaan waxa weeyaan inaad mar waliba odayaasha iyo waxgaradka gacanta midigta ka dhigatid weeye, inaad niman dhalinyaro oo siyaasiyiin oo meelaha u duuduulo qol ku xiratid oo ra'yigooda la imaatid ma aha. marka talada xumadii hore u soo dhacday doorashooyinkii la soo boobay talo maartay waxaasoo dhan hadda waa laga gudbay. hadda sheeko masiiri baa taasho inaad maartay odayaashaas oo maartay oo beel kasta leh inaad soo dhaweysato, ra'yi kasta oo kala duwan inaad soo dhaweysatid weeye. odayaashaas waa asset, hantida maguuraanka aad haysatid weeye. taladooda qaado, waa lagu liibaanaya talada odayaasha waa lagu liibaanaa. runtii shacabkan markaas ku soo raaci kara, shacabka markaas ku soo raaci kara. aniga kula hadlaayo qaabkaada wax u wadid, qaabkaada waxa maartay dawladdaada u soo dhistay runtii kuma qanacsani, laakiin xilligan hadda la joogo taladaada runtii wixii wanaagsan waan kula qaaday, waa kula jaan qaaday, laakiin wixii khaldanna inaan ka ciliyaan jecelahay runtii. marka taas waa taas. mid kale gobolka Soomaalida degto
inaad kala saartaan baa fiican kheyb oo volatile ah jirto kheyb oo hadday hataa Ethiopia wax isbedel ka dhacan waxbaan soo gaarin baa jiro anigaan kula hadlayo waxaan ka soo jeedaa gobolka daawana hadday wax yar dhacan target ugu horeey buu noqonayaa marka dawladda inay maartay crisis meeting ka yeelataan jeclaan lahaa oo maartay aqli iyo fikir meeshan sidii lagu hogaamin lahaa aad soo saartid waayo anaga aad baan u kala fognahay jigjiga ilaa mooyaale uu yaraan waa over 800 miles kilometers weeye runtii sida kaliya la isku soo gaari jiray waxay ahayd gudoomiye baarlamaan ba halka noo fadhiyay oo maartay habeen iyo maalin ku qaylin jirnay sida iyo sidaan sameeyo dawladdu waxa naga soo qaad hadda taa meesha way ka baxday gobolka daawa qofka hadda mas'uulka aan waa nin dhalinyaro ah oo aad u dhalinyaro ah oo waxaan oo dhan kala aqoonin luqadii dib ku yahay maamulkii dib ku yahay dhalinyaro lama hayso way marka waxaan ku codsan lahayn halka gobolka daawa inaad mar taladiisi wax garadka u yeertid oo kala tashid ama ka codsan lahayn runtii marka inta iyo guuleysa baan ku leenahay Mustafa iyo dawladdaada guuleyso gacan baan ku siinaynaa hari habeen waa ku garab taaganahay adigina sidaas oo kale hadalkeegi inaad tixgeliso oo miisaantid weeyaan marka waana in badan baan salaamaya dhamaantiin insha Allah ta'ala Soomaali ha noolaato gobolka Soomaalida ha jiro ha joogo cadowgeegi ha jabo leenahay insha Allah assalamu alaykum سحن